ilaahay baa wuxuu inooga warramay laba hablood oo dhalinyara oo ceel dad ka dhaansanayaan oo xoolaha iyo dunyadu ay joogaan oo kala horanaya meel halkaas ka istaagay dabeedna ninaan markaa weli nabi laga dhigin ayaa waa nabi Muuse u yimid oo maxay ku dhacay ku waraabsan weydeeno labada hablood eeg ilaahay tusaaluhu ka siinayo ragga halka waadaanta shubaya inay dhex galaan oo ikhtilaad sameeyaan waxay ku diideen halka uga dhowrsanaadeen oo yiraahdeen aabahayo wada daadii aabahoodaha iyagoo walaal dhalan wadani walaal haduu joogo uu soo aroori lahaa ilmaadeer caawiya lahayn arigii ay wateen iyo xayntoodii dunyadoodii ay ka gaajoonayso ay ka ooman tahay ay hadana diideen ragga ceelka shubanaya inay waadaanta hor foorsadaan biyuhu dharka kaga daataan ay ku qoyaan ay ku dhagaano dabeedna dhowrsooni iyo sharaftooda iyagoo ilaalinaya iyagoo intaas oo dhibi haysato koona uga istaagay maantana markaad eegto xaalku halku taagan yahay is dhexgalku sida uu yahay ana waxba idin ka warramin ogtiino de nolol maalmeedka caadiga uu ka mid noqday haddana waan si yara adkaynayaa ninkii garanaya jinaasada gabadh hadaad aragtay ama meydkeeda kafanka ninka ragga lagu kafayada siyaada loogu darax 3 ilaa 4 baa la gaarsiiyaa si loo asturo qabriga marka lagu aasay hadaad tagto ugu yaraan inta qof jinaasada dul taagan 50 kamida ama 60 kamida waxa mid walba ku celcelinaya waa ruux dumare astura waa 60 qof go'ba sida loo saaraa xabaasha iyadoo dhimatay baa gabadha ama ruuxa dumarka sida loo asturaa sida loo ilaaliyaa balka waran gabadhay adigoo nool hadaa dadkii xataa ku dalban ba adigu jirkaaga subaxba meel u soo duubto oo sharaftii iyo karaamadii ilaahay ku saaray xataa adigoo meeyda sida lagu ilaaliyay oo sida lagu asturay ad bini'aadankii magac iyo faan u aragtay in jirkaaga hor keento ragga imka lama oran karo imka noole rag waqti bay noolaayeen nimanka wali way joogaan rag fiican oo fara ku tirisay laakiin mar la arag yihiin waxaad arkaysaa in aan iyagu waxba soo wadinoonay waxaan ay kaba faa'iideysanayaan ba sababta ilaahay gabadhu yiri gurigaaga iska fadhi waa ilaalin ragana la ogaana waayadkooda waxa ku jira gabadh miskiinad arkaysaa iyo hooyo miskiiniye inanteediyo makhaayad yar furtayo haddaanay baahihayn makhaayaddan may furateen ragganna may hor foorsateen ashaha kolba hor dhigayso baahi baa soo saartay haday lacag haysato wax walba u dhameystirayeen gurigeedii joogi lahayd raggii inay marxalka eegaano ka naxaano u naxariistaan oo wanaajiyaan oo ixtiraamaan ay ahayd ayaa konton loogu fadhiisanaya loogu qayliyaa mid walba uu doonaya waliba inuu sii rawaxiyeen too dabeedna uu raacaba inaan gumeed maqli jirtay gabadhu wadada haday lugayso waxaad arki doontaa 6-7 gaariyo isku xigaabo u istaagayaan say gabadha u sii qaataan muxuu ka doonayaa maxafadadu garanaya miskiiniga ina rag hadaad xataa shaqo u doonato ama muraad kale adigoo ruux dumar ah uu ka galo 99% waa ka isku daya ama kuwa isku daya inay ka faa'iideystaan marka qaar soo rasabo inaan gumeedo ninkii ka naxayo gabadh sharafteeda iyo cirdigeeda ilaalinaya waxaad arkaysaa gabadh muuqaal anshaxumo oo sharafteeda burburinaya soo dhigayso inta daba socoto ee sacabka u garaacaysaaba 85% waa rag xaalku marka uu sidaa yahay waxaad moodaa waxyaabihii ilaahay qofka bini'aadanka ilaahay baa abuurtay ee wuxuu soo raaciyay daliil iyo buug kitaab sida doontaba u arag kitaabka quraanka oo jideynaya oo ilaahay ku abuuray ee gacantiisa kugu sameeyay wixii ku wanaagsan iyo wixii ku xun ku sheegayo waxaad moodaa haweenkii wixii u xumaayay ilaahay u diiday naftooda u daraa inay farxad iyo magac iyo maamuus ka doonayaano shaydaankii uu go xariira u saaro wax aad uga dhigay wax alla iyo wixii ilaahay u diidayna inaanay cidna dhag jilaq siinin ama ilaahay la doonay anigoo hadalkayga weli aan lafta gaadhin wax badanna aan odhanin haddaad ruux dumara tahay nolol yaroo gebigeeduba 3-6 sano ama wax ka yara maantana haddaad seegta laga yaabo kala badh ama ruuceed inaad qaadatay inaad sharafta makhluuqaad ku horweydo oo aad magac iyo caannimo iyo weji kaga raadiso wixii ilaahay kuu diiday iyaga istiraahdo ku raali geli waxa kaaga fiican nolosha dambe ee lagu waarayeen lagana dhimanayn ilaahay ku abuuray qafuur raxiimka haadoo ku raali geliyo wixii uu ku yiri adduunkana sidka ku qoran iyo arsaaqda ku qoran wax walba hadaad samayso ku waaymaysid ilaa arsaaqda ugu dambeeyay ceeshkaagu tan ka go'ana laga kaxayn maayo noloshiina adag tahay waxa
ku cadaynaysa adigoo nool kama baxasid dhimasho geeri baad kaga baxaysaa waxa qurux badan wixii ku dambeeya inaad eegto sharafta ehelkaaga iyo waalidkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada intaba inaad eegto xaqa dadka inta ugu badan way karhaan runtana dadka inta ugu badan way ka xanaaqaan Allah inaga dhigo kuwa uu runta garansiiyo xaqana uu raacidiisa ku arsaaqo والسلام عليكم